hataba maxay tahay Liverpool goolka ay gaadhay qiimeynta kulanka xaqiiqooyinka laga qoray iyo wixii laga yiri kulankaas oo soo dhamaaday. Liverpool ayaa gool qurux badan ku gaartay garoonka Wembley kulan ay 2-1 kaga badiyeen Spurs kulan ka tirsan horyaalka Premier League waana kulan macno badan uga fadhiya wiilasha macallin Jurgen Klopp. Laba gool oo ay kala dhaliyeen Wijnaldum iyo Roberto Firmino ay Reds guusha kaga heshay dhigeeda wallow Alisson uu shabaqiisa ilaa shir waayay intii ay socotay ciyaarta waana markii labaad oo gool laga dhaliyo fasal ciyaareedkan kulamada horyaalka. Reds haatan iyadoo aan wax guulo daro iyo barbaro ah la kulmin ay 15 dhibcood heshay shantii kulan ee ay ciyaareen horyaalka waana record 100% gooshi koowaad waxay timid daqiiqada 39aad xidiga kooxda kubadda cagta Liverpool Wijnaldum ayaa dhaliyay goolka oo madax ahaa waxa lagu ansixiyay aalada goal line technology maadaama VAR uu soo celiyay kadib markii xariiqda dhaaftay. daqiiqadii 54aad Roberto Firmino ayaa dhaliyay gool ku taabasho ah Mane ayaa ka soo shaqeeyay Fortogan ayaa birta isaga dhuftay halka VAR uu qaban waayay si sahlan ayuu xidiga Brazil shabaqa ugu riday. 90 daqiiqo lagu daray 3 daqiiqo Eric Lamela ayaa shabaqa soo taabsiyay goolka rajo soo celinta ahaa Spurs kaliya waxa uu sameeyay niyad dhis waqtiga ayaana ku dhamaaday. maxaa laga yiri kulanka Gary Neville halyeeyga Man United oo kulankan wax ka falanqeynayay wuxuu yiri Spurs waa in u madceliso ciyaartooyda nasiibka leh hadiiba ay kaliya ciyaarta tahay 2-0 tani waxay ku noqon kartaa dhibaato dhaba ayuu yiri mar ay ciyaarta mareysay 2-0 kana yaabay sida ay xidiga Liverpool ugu socdaan goolka Spurs. xaqiiqooyinka kulanka waa markii saddexaad soo Liverpool badiso dhammaan 5 kulan ee ugu horeysay horyaalka Ingiriiska heerka koowaad waxaana sanadka ka horeeyay 1990 ilaa 1987 ilaa 1979 Roberto Firmino wuxuu ka qayb galay 61 gool oo Premier League muddada uu ku soo hoos ciyaaray ama uu ku soo ciyaaray kooxda kubadda cagta Liverpool 23 caawin 38 gool waana in ka badan 16 xidig walba dhammaan 5 gool ee laga dhaliyay fasal ciyaareedka kooxda Tottenham Hotspur dhammaan waa madax. xaqiiqada ka hor goolka Firmino ayaa la diiwaan galiyay. Jorginho Wijnaldum ayaa dhaliyay goolkii ugu horeeyay horyaalka Premier League uu ku soo dhaliyo banaanka 55 kubad uu goosha la aaday ayuuna goolka ku helay.